قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ilaahay weynaayee isagoo nabigiisa la hadlaya wuxuu yiri nabiyow ku dheh mushrikiinta kuwaas aad sheegteen inay Allaah ka sokeeyaan ma hanan karaan wax yaroo ilma qabato ah oo ka mid ah cirkaan iyo dhulkaan shirkana kulama ahan koonkaan umana ahaanin ilaahay kaalmeeye ama gacan yare iyaga ka mid ah ergeyntuna waxba ma tarto alle agtiisi qof uu u idmay ma ahe ilaahayna sahnaaye aayadan wuxuu ku baabi'iyey 4 arin oo mushrikiintu rumaysnaayeen in ilaahayadoodu leeyihiin kow inay u ahaatay aalihadoodu awood ka duwan mid aadanaha 2 inay koonkaan wax ku leeyihiin 3 inay ilaahay gacan yareyaal u yihiin 4 inay jaah sharaf iyo waji ku leeyihiin alle agtiisa oo warkooda aan la soo celinin saas daraadeed waxaa lagu yiri dad yahow haddaad moodeen in kuwaani awood ku leeyihiin koonkaan hadda ogaada awood yarna ma laha inay wax idin taraan ama wax idin dhimaan iska daaye naftooda xitaa khayr iyo shartoona uma haayaan haddaad moodeen inay ilaahay la wadaagaan oo la leeyihiin koonkaan hadda ogaada xabad dhuuracasa ahna kulama laha waxba idinkama siin karaan waxna idinma diidi karaan haddaad moodeen inay Allaah u yihiin gacan yarayaal iyo wasiiro hadda ogaada ilaahay cid idinka xigta ma jiro isaga toos u tuuga oo u kaalmo weydiista kaligiisna ka shareeco iyo dastuur qaata haddaad moodeen in kuwani ilaahay agtiisa waji iyo sharaf ka leeyihiin oo warkooda aan la soo celinaynin hadda ogaada ilaahay agtiisa shafaaco waxba ma tarto inuu isaga ogolaado ma ahe culimadu ayaa aayadan waxa ay u bixiyeen aayadii xididada usiibtey shirkiga sababtoo ah wax lagu marmarsiyoodo umaysan reebin kuwa shirkiga ku jira oo ku fogaaday